waxaa saaki magaalada Guraceel dib ugu qarxay dagaal culus oo u dhaxeeya kooxda la baxday Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug. dagaalka saakay waxaa wadajir u hogaaminaya sargaalka la yiraahdo Farxaan Qaroole iyo Jarnaal Mascuud. labadan nin ayaa markii koowaad isa garab diriraya maanta. waa maalinkii saddexaad ee dagaalka Guraceel. Jarnaal Mascuud ayaan isagu ka qayb galin dagaalkii shalay. xoogga dagaalku wuxuu saakay ka socdaa halka la yiraahdo jaamacadda oo ay ku soo aruurtay kooxda hubaysan ee la baxday Ahlu Sunna. shalay maxaa dhacay? shalay markii culays badan la saaray kooxda waxay Ahlu Sunna dalbatay inay ka baxdo magaalada oo wada la siiyo. fariintan waxay soo mariyeen Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Senator Yuusuf Geelo Ugaas. labadan senator oo ka mid ah dadka ugu dhow dhanka hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa la sheegay inay Qorqor ku qanciyeen inuu xabadda ka joojiyo kooxda oo ay diyaar u tahay inay magaalada ka baxdo. waxaa dood adag qaadatay inta gaari ee loo ogol yahay inay kooxdu la baxdo, waxaana markii dambe la isku fahmay inay 4 gaari ku baxaan. 2 saacadood ayay dalbadeen. markay 2 saac dhamaatay oo la isku dayay in la tago fariisimahoodii ayaa la sheegay inay xabad soo bilowday kooxdu, taas oo sababtay inay jabto xabad joojintii. dibna waxaa u qarxay dagaalkii. waxaa kooxda lagu eedeeyay inay khiyaanad dagaal ka waday codsigaasi 2 saac ah. dhaawacyo iyo meydad ayaa la sheegay inay la baxeen. sidoo kale gurmad ayay sugayeen iyo hub la sheegay inuu kaga yimid dhinaca maamulka Puntland. lama yaqaano inay hubkaas kooxdu ka soo iibsatay dhanka maamulka Puntland ama inuu maamulkaasi ku taageerayo kooxda, kaas oo ay Galmudug shaki badan ka qabto inuu taageerayo kooxda. dagaalku waxa uu galay maalinkii saddexaad. khasaaraha ayaa sii batay shalay iyadoo labada dhinacba ay lumiyeen saraakiil wax ku ool ah. dhaawacyadu waa tirabeel, waxaana ay buuxdhaafiyeen isbitaalada Guraceel, Dhuusamareeb iyo Muqdisho oo qaar badan la keenay. magaalada Gaalkacyo ayaa sidoo kale dhaawacyo la geeyay. geerida 2 maalmood ee la soo dhaafay ee dagaalka waxaa la tabinayaa tiro ka badan 100. baaqyo nabadeed oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan ayaan weli loo joojin. Ahlu Sunna maadaama ay shalay hub dheeriya heshay, waxaa la aaminsan yahay inay weli sii dagaalami karto, laakiin culayska uu ku bilowday dagaalka saakay ayaa sababi karta khasaare xoog badan ama inay natiijadu dhinacu dhacdo. dadkii ka qaxay magaalada Guraceel ayaa weli ku rafaadsan daafaha fog ee magaalada. waxaa aad u yar gurmadka ay dadkaasi heleen. siyaasiyiinta deegaanka ayaa kala taageersan labada dhinac ee diriraya, taasoo sababtay in aan la soo xasuusan shacabka ku barakacay dagaalka maalinkii saddexaad ka socda magaalada Guraceel. dhinacyada waxaa ka muuqata inay mowqifkooda dagaal weli ku taagan yihiin. Ahlu Sunna oo mararka qaar dabacsanaan iyo wada hadal dalbanaysa waxaa loo arkaa inay xeeladaysi ku jirto oo ay mar walba raadinayso hab ay ciidan iyo hub cusub ku soo geli karto magaalada ama ay bannaanka ku geysan karta dhaawacyadeeda. maamulka Galmudug waxaa la sheegay inay markaan toos u qaadaceen waan iyo in kooxda mar dambe loo ogolaado farsamo ay ku sii dagaalanto. lama saadaalin karo halka uu dagaalkani ku dambayn karo, walow ay muuqato in Ahlu Sunna xoogaa laga itaalroon yahay. maxay kula tahay adiga?